wardegdeg daawadayaal waqtiga idin tahayba wacan ayaan idin leeyahay ciidanka dawladda Turkiga ayaa fariisimo waaweyn waxa ay ka sameysteen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo ciidamadii ugu badnaa loo daabulay halkaasi nala daawada ciidanka Turkiga oo fariisimo ka sameystay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo haatan magacooda sheegay muuqaalkan aad aragteen waa ciidamada Turkiga oo fariisimo ka sameystay deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe goobta ay fariisinku ka sameysteenna dabcan magacooda ma sheegayno sababo ciidan awdud balse ciidankii ugu badnaa oo dawladda Turkiga ay leedahay ayaa shalay ilaa maanta loo daabulay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaadiidka ugu badnaa iyo saanado military iyo madaafiicda waaweyn aad aragteen ayaa la geeyay furimaha hore ee dagaalka waxayna ciidankani qayb ka noqon doonaan dagaalka adag ee lagu jiro kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab hubkii ugu badnaa ayaa la geeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe hubkaas oo laga dajiyay markabkii dhawaan ku soo xirtay dekedda magaalada Muqdisho ciidankani waxay ka barbar dagaalami doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka adag kula jira kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab waxayna ciidankan Turkida ah la geyn doonaa ama ay gaareen dhowr qaybood oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe qaybahaas oo haatan magacooda aan sheegin sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in diyaarado dagaal base loogu dhigay deegaanka wargaadhi kuwaasoo diyaaradahaasi ay leeyihiin dawladda Turkiga iyagoo qaybta ka ah dagaalada adag ee la gali doono kooxaha nabaddiidka ah ee al-shabaab howlgalkan weyn ee dhawaan ka bilaaban doona gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa qayb ka ah ciidanka Turkida iyadoo dhowr hurin oo ciidanka Turkida ah la geeyay Shabeellaha Dhexe kuwaas oo qayb ka qaadan doona dagaalka adag ee dawladda Soomaaliya la gali doonto kooxda qawaarij ah ee al-shabaab kooxda argagixisada ah ee al-shabaab wararka aynu ka helino deegaanada ay joogaan ayaa waxay sheegayaan in cabsidii ugu xoogganeed ee kooxdu soo wajahday halka deegaanada qaar ay faarujeen aan ka xusi karno degmooyinka Aadan Yabaal iyo Masaajid Cali Guduud waxaana deegaanadaasi haatan dul hayhaabaya diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga leedahay ee loo yaqaano Beqdaad iyo Akanji kuwaas oo ah diyaarado drone wararka ay sidoo kale waxay sheegayaan in cutubyo kale oo ka tirsan ciidamada Turkiga la gaarsiin doono deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose kuwaas oo ayagana qayb ka qaadan doona dagaalka adag ee la gali doono kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab sidoo kale ciidan kale oo Turkiya ayaa ka soo duuli doona magaalada Istanbul kuwaas oo iyaguna qayb ka ah ciidanka ka babar dagaalami doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Turkida ah ciidankan Istanbul ka soo duuli doona saacadaha soo socda dabcan wararkeena dambe ayaan idinkugu sheegi doonaa balse ciidankani beeska ka dhigtay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waa kumaandooska ugu dambeeyay waxa ay ku hubeysan yihiin hubka noocyadiisa kala duwan saad arkaysaanba waxa ay rakibteen raadaalla iyo madaafiicda waaweyn ee goobta waxayna halkaasi dabcan ama deegaanadaasi ugu diyaar garoobeen in dagaal dhanka lugta ah ay la galaan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ciidankii ugu badnaa ee xoogga dalka Soomaaliyeedna waxaa loo daabulay gobolka Shabeellaha Dhexe oo kumaandooska gorgora wararka aynu ka helino deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan saraakiil ciidan oo Turki ah iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed haatan halkaasi wada joogaan waxaana laga arinsanayaa jihooyinka laga qaadi doono dagaalka adag ee dawladda Soomaaliya ee la gali doonto maalmaha soo aadan kooxda qawaarij ah ee al-shabaab balankuna waxa uu yahay inta aysan dhamaan bisha barkeysan ee Ramadaan in labada shabeelle laga xaalufiyo kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab ciidankani sidoo kale waa ciidan ku qalabaysan hubka noocyadiisa kala duwan waxayna sidoo kale qayb weyn ka qaadan doonaan duulaanada dhanka lugta ah ee lagu qaadi doono goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan nabaddiidka al-shabaab dawladda Soomaaliya ayaa sii laba jibaartay abaabulka ka dhanka kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab iyadoona dagaalkani ama iskaashigani uu qayb ka yahay heshiiskii difaac ee wada galeen dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga ciidan aad u tiro badan oo kumaandooska gorgora ayaa iyaguna haatan gaari doona gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ciidankani saacadihii la soo dhaafay laga sagootiyay Muqdisho ayna la hadleen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ilaa kumaan kun oo ciidan gorgora ayaa haatan gaaraya furimaha hore ee dagaalka ee labada shabeelle waxayna qayb ka noqon doonaan dagaalka adag ee la gali doono kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab
ciidankan Turkida ah ayaa iyaguna ah ciidan si weyn uga barbar dagaalami doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka ba'ani kula jira kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. dabcan dagaalkani waxa uu noqon doonaa dagaal ka duwan dagaaladii hore oo ay wada gali jireen dowladda Soomaaliya iyo kooxda nabadiidka ee al-shabaab. waxaan dagaalkan ku soo beeray dowladda Turkiga wax badanna waa uu ka bedeli doonaa dabcan in furimaha hore ee dagaalka wax way ka bedeli doonaan maadaama ay u dhameystiran yihiin agabyadooda kala duwan. dabaabada iyo taangiyada dagaal oo casri ah ayaa sidoo kale loo daabulay labada shabeelle ee shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe iyo furimaha hore ee dagaalka. saacadaha soo socdana waxaa halkaasi gaari doona taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim oo saacado ka hor kulan Muqdisho kula qaatay saraakiisha ciidamada Turkida iyo safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya waxayna ka wada hadleen xoojinta dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee al-shabaab. dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay qaado tallaabo military oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab iyadoo Turkiduna ay wacad ku mareen in labada shabeelle ay ka xaalufin doonaan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. howlgalkan dabcan waa uu ka duwan yahay howlgaladii hore ee qaadi jireen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana sidoo kale howlgalkani qayb ka ah iyaguna ciidanka AUSOM AMISOM hore loo dhihi jiray kuwaas oo iyaguna dagaalka gali doona. waxaa sidoo kale dagaal ka qayb qaadan doona guud ahaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaana la qorsheenayaa saacadaha soo aadan in lagu dhawaaqo dagaal xooggan oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. Turkiga ayaa qayb ka ah dagaaladan waxayna si weyn u garab istaagi doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. haatan wararka aynu ku helino deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee Turkidu ay dul heehaabayaan goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab iyadoona kooxda argagixisada ahayd ee gabi ahaanba ay faarujinayaan goobihii ay ka joogeen gobolka Shabeellaha Dhexe xilli ay soo food saartay cabsidii ugu xooganeed oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. wararka aynu ka helino gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in kooxdu goobihii ay ka joogeen gobolka Shabeellaha Dhexe inay labadii maalin la soo dhaafay iskaga baxeen iyadoona hadda degmooyinka muhiimka ah ay ka joogaan gobolka Shabeellaha Dhexe ay haawanayaan waxaana haatan degmooyinkaasi kaabiga ku haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka soo horjeeda dagaalka adag kula jira kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. Turkida ayaa sidoo kale diyaaradahoodu waxa lagu arkayaa guud ahaan labada shabeelle waxayna dul heehaabayaan goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab. dadka ku dhaqan deegaanada ay nabadiidku gacanta ku hayaan oo xiriir la sameeyay ayaa inoo xaqiijiyay inay arkayeen xalay ilaa maanta ilaa saakay diyaarado waaweyn oo dul heehaabaya dushooda waxayna sheegeen in diyaaradahaasi dabcan ay dhowrkii maalin la soo dhaafay ee dul heehaabayeen deegaanada ay joogaan. kooxda argagixisada ee al-shabaab ayaa gabi ahaanba waxay haatan cabsidii ugu xooganeed ay ka soo wajahday furimaha hore ee dagaalka. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in kooxdu uu soo wajahay culays xoogan oo dhanka dagaalka ah iyadoona wararku ay sheegayaan in saacadaha ama maalmaha soo aadan ay soo dhiibi doonaan horjoogayaal waaweyn oo ka tirsan kooxda nabadiidka ee al-shabaab kuwaas oo aan xamili karin culayska ay saareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa Turkida iyo ciidanka AUSOM oo dhamaantoodba duulaan culus ku ah kooxda nabadiidka ee al-shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa haatan abaabulka ugu xooganaa waxa ay ka wadaan guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay saacadaha soo aadan ay duulaano ku qaadi doonaan goob kasta oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab. ciidan aad u tiro badan oo commandoska gorgor ah ayaa sidoo kale laga sagootiyay magaalada Muqdisho waxayna qayb ka noqon doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka ba'ani kula jira kooxaha argagixisada ee al-shabaab. dagaalkani dagaaladii hore waa ay ka duwan yihiin dabcan ciidanka Turkiga dhowr horin oo ciidan Turkiya ama hormihii ugu horeeyay oo ciidan Turkiya ayaa gaaray labada shabeelle waxayna qayb weyn ay ka qaadan doonaan halganka iyo dagaalka adag ee lagula jiro kooxaha argagixisada ee al-shabaab. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan guud ahaanba heegan buuxa la geliyay waxaana heegankaasi geliyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana la filayaa waqtiyada soo aadan in toos loo iclaamiyo howlgalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee al-shabaab. sanadihii ugu dambeeyay ama hubkii ugu dambeeyay casri ahna magaalada Muqdisho way soo gaareen hub kale aad u tiro badan dowladda Turkiga dabcan waa ay soo wadaa kuwaas oo qayb ka noqon doona dagaalada lagula jiro kooxaha argagixisada ee al-shabaab. muuqaalada aad aragteen waxay naga soo gaareen deegaanadii fariisimaha ay ka dhigteen kooxaha ama deegaanadii fariisimaha ay ka dhigteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa Turkida iyadoona kooxaha argagixisada ee al-shabaab ee wararku sheegayaan in gabi ahaanba ay faarujiyeen furimihii hore ee kaga sugnaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe.
guud ahaan gobolada dalka waxaa ka soconaya abaabulka ugu xooganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka ay ka bilaabeen abaabuladii ugu xooganaa oo ka dhan nabadiidka al-shabaab waxaana la filayaa ama amar laga sugayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim si uu u ilaamiyo dagaalka culus ee lagu qaadi doono kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab daawadayaal wixii ku soo kordha howlgaladan culus ee ka bilaaban doona deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose ee ciidamada Turkida ay gaareen ama ciidamada Turkida ay gaaray gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Shabeellaha Hooseba wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan saacadna oo la socon doontaan update kasta oo ku soo kordha duulaanada culus ee dawladda Soomaaliya qorsheynayso inay ku qaado kooxaha argagixisada ee al-shabaab fadlan haddii muuqaalku ku soo gaaro meel dheer inoo gaarsiiyay channelkan subscribe inoo dheh waa mahadsantihiin